سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهبال هدي maanta lagu dhaho yaad adduunka ugu jeceshahay wax aad dhihi doontaa hooyaday iyo aabahay. Waalidiintu wax walba oo adduunkan saaran way kaaga qiimo badan yihiin. Haddaba maanta waxa uu mowduuceena ku saabsan yahay qiso aad iyo aad u cajiib badan, aad iyo aadna u la yaab badan. Maxaa sugaysaa inta aan mowduuceena bilaabin? fadlan muuqaalkan like noo saar sababtoo ah dhiirigelin bay noo noqonaysaa. kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adiga oo subscribe taabanaya. dawlad muslim ahayd ayaa waxa ay soo xireen oday da ah. waxaa go'aan lagu gaaray in cunno iyo biyo la'aan lagu dilo, micnihii wax cunno ala siin maayo ilaa inta uu ka dhimanayo. ma aqaan wax ay arrinkaa ku keeneen. qofka yuhuudiga ah islaamku ma ogola in cunno la'aan lagu dilo, bal asxaabta cunnada ay iyaga cuni lahaayeen ayaa wax ay siin jireen dadka gaalada ah oo la soo xiray. iska daa qof muslima oo weliba da ahe. markii ay arrinkaa go'aansadeen wax cunno ah looma geyin oo keliya waxaa loo ogolaa in ay soo booqato gabadhiisa, cid kale looma ogolaan jirin. marka ay gabadh u imaanayso waa la soo baari jiray si looga ilaaliyo in wax cunno ah ay u geyso. markii la baaro oo la dareemo inay waxba sidan ayaa loo fasaxi jiray aabaheed. maalintii saacad baa loo ogolaan jiray in ay la joogto. waxa ay aragtay aabaheed oo marba mar kasii dambaysa sii baaba'aya, waayo cunnada waxa lagu nool yahay. maalin ayay gabadhu maskax keentay. marka ay aabaheed u timaado waxa ay siin jirtay caanaha naaskeeda iyada oo nuujinaysa. waa aabaheed, waa jeexeedii, waa qofka keliya ay ifka ka fiirsanayso. dhanka kale ciidamada subax walba way u soo geli jireen bal inay soo arkaan in uu odaygu dhintay iyo in kale. maalmo iyo usbuucyo ayaa dhammaaday yaabkiisa. bal inuu dhinto iska daaye wuu sii xoogaysanayay oo awooddiisa ayaa sii kordhaysay. ciidamadii aad bay u yaabeen. cunno looma keenee muxuu ninkan ku nool yahay? ku dhowaad 2 bilood baa dhammaatay. maalintii dambe ayay arkeen gabadha oo nuujinaysa aabaheed. waa ay la yaabeen sida ay aabaheed u jeceshahay. dadkii arrinkaa maqlayna aad iyo aad bay ugu farxeen naxariista gabadha ku jirta. ugu dambayntii gabadha aabaheed waa loo sii daayay oo xorriyaddoodii ayaa la siiyey. dadka arrinkaa maqlay 2 qaybood bay noqdeen: kuwo arrinkaa ku farxay maadaama ay aabaheed badbaadisay, iyo kuwo ka murugooday waxa ay gabadhu samaysay. runtii ani ahaan aad baan ugu farxay gabadha, waayo si aad naftaada u badbaadisid wax walba waa laguu fasaxay, xitaa bakhtiga ayaad cuni kartaa. haddaba daawade, adi ahaan ma ku faraxsan tahay mise waad ka xumaatay arrinkan? qaybta hoose ee commentiga noogu soo qor jawaabtaada.